barasabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaacan Falay oo safar shaqo ugu maqan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ayaa saaka ka soo laabtay isla markaana kormeer ku soo maray qaar ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Garada kuwaas oo ay ka jirtay abaar baahsan isagoo kulan xusxuguraysi la qaatay gudida abaaraha iyo maamulka degmada Garada iyo odayaasha waayeelkii waxgaradka ugu horreyn halka waxa ka hadlay qaar ka mid ah gudida abaaraha iyo heer degmada Garada iyo maamulka degmada Garada hadaladoodina waxa ka mid ah sida ka gudbeenaa mudane gudoomiye sida laga sheekeeyay waxa jirta xaalad abaareed oo aad iyo aad u adag runtii ayaa jirta waxaanu maray meelo badan oo waqooyiga deegaanka iyo koonfurteedaba ah xaaladda aanu aragnay waxa weeye waa xaalad aad iyo aad u baahan dhinaca xaalufka marka la eego dhinaca biyo la'aanta xooluhu way dhimanayaan dadkuna waxa weeye aad buu tabcaan u yahay anigu waxaan oran lahaa halkan waxay u baahan tahay horta gurmad xoog leh waa loo baahan yahay dhowr jeer baanu media ka hadalay waxaan u diraynaa horta baaqa baanu diraynaa waxaan u sheegaynaa hay'adaha inay kuwa xasaasgareeyada inay yimaadaan oo eegaan oo horta wax nala qiimeeyaan siiba bal hay'adda neeraad oo iyadu ma garanaysaa ka tirsan xukuumadda waa inay timaado assessment nala eegto oo bal baahiyahan iyo sida ay yihiin iyo heerarka ay gaarsiiyeen sida wax loo maareyn karo ay nagala qayb qaataan anagu balaana badanna de gudoomiye xog baad ka haysaa waxay hadda laba daraadle u sii daran waxa weeye biyaha iyo baadka way ku celisan yihiin waxa kii imika gaariga ku raray 600 ka bixiyo cooda la geeyay hadana soo celiyay marka wuxuu waayay xaaladu meel ay maraysaa waa SOS ilaahay baa dadka baahida ka saari kara laakiin dadaalkii galbeedka loo galay waqtigii ay jirtay abaaludu maantana tijaarta iyo qurba jooga iyo dawladda iyo cid kasta oo ay damqasho ku jirta ay eegaan sawirkii oo duubanayna waxay leeyahay qolada saxaafadda iyo xaalad kastaba wixii ay ogeyn iyo waxa ogtihiinba hayeeshkii guriga loogu dhaaminayay baa la raray boqolkiiba 40 baa ku baqtiyay boqolkiiba 40 baa baabuurka ku baqtiyay wax baabuur la yiraahdo waalana dalkii waa lagu soo falayo gabigiisii ba meeshii uu xalaan iyo meeshii aanu xilin ba taayir baa la tagay waxaanu leenahay ilaahay baanu baryaynaa awal ilaahay bayna qoodin jiray hadhowna ilaahay bayna qoodinaya waxaanu ka waramaynaa jileeca xoolahaanu ka waramaynaa xoolihii dad waaba soo hoyday dadkii aan wax fiican haysan waaba soo hoyday in baa wali la warwareegaysa runaantii waxay rabtaa intaas مساعدة يربطها إلا ساعده أو وحي للا قبان كريا للا قبطه أو بدن يهي تدكو بيو يباد ودونيا inta aanu anagu ka warhayna oo sidoo kale waxa saaka degmada Garada laga tukaday salaadii roobdoon tahay dhammaan dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Garada ay isku soo bixeen sidii ay tukan lahaayeen salaadan roobdoonta barasabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaacan Falay ayaa sidoo kale ugu baaqay gaadiidleyda ku dhaqan deegaanada hoostaga gobolka Sanaag ee dadka ay abaaruhu saameeyeen raraya in ay ka jabiyaan qiimaha oo ka warbixiyay safarkiisa uu kaga yimi caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa isla cid kastoo dan ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii ay gurmud ugu fidin lahaayeen dadkan ay abaaruhu ساميين قبل كالسنة إن شاء الله تعالى ويقبلين إن يصبحان كذا قبل برا يصبحيا كارهان وهنلاقي والدواق دير أنا هلكن كتير يا قبل أقول أبارت حنلي وحويه وقبل كالسنة سدا أول وردتك هاللوج ومدو إن شاء الله الدولة والديار ونصوب الله وإيمانا ينوحي اللي هلنا ويكينيان كود أبارة قرق كيمد حوالي قرقه جمهورية السوماليلاند مدني أحمد محمود سيناي أو مقعابينا وإيمان ياسان هرب يدك الشيء وحلي نجد دنيا سكاش وحلي نجد دنيا شذا تبرعاتك عد كستيبة إن شاء الله وحيات كرتان وكالك الدولار بحياة وحبو تريا كالك الدولار بحياة وحبو تريا ككسي بديانا هذا الكيد بدأ من اللي تشوفه وحنباق دير ودريا عد كستو تاكل وحكي يسكرتها إن dadka muslimiinta ee tabaalaysan soo caawiyaan oo runtii aan doonay halkan fursadan in laga faa'iideysto dadka gaadiidleyda ee gaadiidkooda ka ganacsanaya waad aragtaan maanta xaaladda lagu jiro waxa la idinka doonayaa inaad dadka u naxariisataan oo ninka wax raran karaya ama qoyska wax raran karaya waa qoys yaani tamartiisu ay liidato boqolkiiba halka maaha inta kale
ee aan raran karaynin ee meelaha juraan qayari uu ka jiro yani doonaya inay tagaan u jabiye dadkan ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada hoostaga degmada Garadag ayaa xaalufka biyo la'aanta iyo abaarta waxa uu raacayaan dheer oo ay u hayaamayaan meel ay micin u badeen in ay u dhaanto halkan ay ku noolaan kari waayeen xoolaha intii u hadheena ay kaga marayso gawaadhida dushiisa waa Madasayre Muqbaaya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.